nebigu wuxuu dhihi jiray arixnaa yaa bilaal bilaal istaag oo salaada noogu raaxay ayuu dhihi jiray salawaatullaahi wasalaamun calayh adduunka waxaa layga jeclaysiiyey buu yidhi waxa carfaya iyo dumarka ayuu dhahay nebiga wa quratu cayni assalaa waxaan ku indhaqaboobsadaa oo haddii aan waaye aanan joogi karin oo haddii aan waaye aan qandhanaayo oo haddii aan waaye aan jiranayo waa salaada ayuu dhahay sala allahu calayhi wasalam amaa waxaa adduunka layga jeclaysiiyey xaggeeda waa shayga udga iyo dumarka guurkooda laakiin waxa aan ku indhaqaboobsado oo waxaasoo dhanba igala qiimo weyn salaada waayabuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam caaisha markii la su'aalay ee la yidhi nebiga markuu guriga joogo muxuu sameeyaa waxay tidhi kaana calaa mihnati ahlihi ehelkiisa ayuu u qidmeeyaa guriguu nala xaaqaa waxbuu nala qabtaa hawsha guriguu dhinac ka qabtaa haddii aadaanka uu maqlana kharaj bay tidhi caaisha isla markii waa baxayaa waxaad u malaysaa inuusan banna ka saynin salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waayo wixii uu ku indhaqaboobsanayey ayuu markaa maqlay taa waxaad ka fahmi kartaa sakaraadka markii uu gaarsiisnaa nebiga sala allahu calayhi wasalam xaala sakaraatihi ayay ka sheekaysay caaisha waxay tidhi rasuulka oo aad iyo aad u sakaraadsan oo xanuunkii lagu qibdoon lahaa haaya asxaabtana masaajidku ay fadhiyaan oo ay sugayaan muctakifiin ay ku yihiin soo bixitaanka nebiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku jiifay bay tidhi dhabteyda caaisha waanan fa uqmiya waa la miir daboolay nebigu waa suuxay salawaatullaahi wasalaamun calayh cabbaar markuu suuxsanaa ayuu indhaha soo kala qaaday ayay tidhi caaisha radia allahu canha hadalkii ugu horeeyey ee nebiga afkiisa ka soo baxay wuxuu ahaa usalliya annaas dadkii ma dukadeen buu yidhi bay tidhi caaisha radia allahu canha laa bay tidhi hum yantadiruunaka aday ku sugooyiin rasuulka ilaahayow imaamnimadaaday jecel yihiin oo ay sugaayaan rasuulka koombe biyo igu soo shuba ayuu yidhi koombadii ayaa biyo loogu shubay madaxa ayuu isaga shubay waa istaagay wuxuu damcay inuu dhanka masaajidka aado tallaabo ayuu qaaday tallaabadii labaad intuusan qaadinna sarajooggiisa ayuu ka dhacay salawaatullaahi wasalaamun calayh fa uqmiya haddana waa la miir daboolay asaga oo cabbaar suuxsan ayuu haddana indhaha soo kala qaaday isla markii indhaha uu soo kala qaaday hadalkii ugu horreeyey tiri caaisha ee nebiga uu ku hadlay dadkii ma dukadeen caaisha ihtimaam weyn ayuu siinaa rasuulka xaala sakaraatihi waaye waa wakhtigii la qibdoon lahaa waa wakhtigii geeridiisii la gaaray wuxuu mar kasta leeyahay markuu indhaha soo kala qaadaba usalliya annaas dadkii ma dukadeen caaisha mayay tiri biyo isiiya ayuu yidhi sidii oo kale ayuu yeelay waa istaagay nebiga waa soo baxay wuxuu damcay dhanka masaajidka inuu soo aado tallaabuu qaaday tii labaad intuusan qaadin sidoo kale haddana istaagiisa ayuu ka dhacay waa suuxay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh intaa ka bacdi markuu dhowr jeer sidaa noqday ayuu yidhi nebiga maruu abaabakar falyusalli binnaas aniga maanta ma baxi karo xanuunka iga tan iyo dhibaato badiyey ee abuubakar amra asaga dadka ha dujiyo ayuu yidhi salawaatullaahi wasalaamun calayh caaisha waxay tiri rasuulka ilaahayow abuubakar booskaaga ma istaagi karo waayo wa kaana rajul raqiiq nin jilicsan oo qalbi jilicsan waaye markuu qur'aanka akrinaayo halaba caynaah indhihiisaa ka adkaanaya fabakaa waa oynaa maca daalika ma maqalsiin kara qiraa'ada dadka ee amar cumar asagaa ka kakane alxaasil xadiiska bukhaari aad buu u dheeraa wuxuu noo tilmaamaa ihtimaamka weyn ee nebiga salaada uu siinaya salawaatullaahi wasalaamun calayh iyo sida aan anaga maanta u dayacnay oo salaaddii aan ugu ciyaarnay oo aan ka dhignay waxaan qiimo iyo wanaag lahayn waxaa nagu kor rumoobay ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala dadkii fiicfiicnaa ee marka salaada ay dukanayaan iyo marka aayadaha ilaahay qur'aankiisa la aqrinaayo dhici jiray sujuud iyo oohin la dhici jiray markay baxeen oo adduunka ay ka tageen oo qabriga ay galeen ka bacdi fakhalafa min bacdihim khalfun kuwa khuluuf ah ayaa soo haray buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala adduunka maanta waxaa degan khuluuf waxaa loola jeedaa dad sharta khaliif ku noqday khayrka neceb oo sharta jecel xumaanta maahane wanaagga aan rabin wixii san oo dhan dhibaaya xumaanta maahine rag noocaasa ayaa haray buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala fakhalafa min bacdihim khalfun maxay sameeyeen adaacu asalaad markii horeba salaaday ku dheeleen buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala shuruudeedii arkaanteediiay dayaceen habkii loo dukan lahaa ayay ku dheeleen ayadoo dhan bay ka tageen wahsi iyo culays ayaa ka koray fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu asalaad waatabacu shahawaat shahawaadkoodii ayay raaceen shahawaad waxaa loola jeedaa wax walba oo naf ay jeceshahay oo lagu tamatuco ayaa markaa la yidhaahdaa waatabacu shahawaat buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala waxay doonaan ha sameeyaana fasawfa yalquuna hay beri ayay hayi la kulmi doonaan buu dhahay ilaah waa qiyaamaha
waadi naareed oo cadaabka jahannama ka mid ah ayaa lagu abaalmarin doonaa, meeshaasayna ku jiri doonaan. dadka in badan oo kamida maanta salaada ayay ka tageen, waxay ku sifoobeen sifadii munaafiqiinta ee ilaahay uu yidhi ina almunaafiqiina yuqaadicuuna allah, munaafiqiinta allay dhagrayaan wahuwa qaadicuhum, asagana waa khiyaanaya ilaa subxaanahu wa tacaala. khiyaanadii ay la yimideen ayuu ka jaasinaa, waa ka abaalmarina, waa dhagraa subxaanahu wa tacaala. waidaa qaamuu ila asalaa, salaada markay rabaan inay u istaagaan qaamuu kusaala, ayagoo wahsanayay kacayaan buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas, dadkay istustusaan buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliil, ilaahayna ma xusaan ilaa wax yar maahane subxaanahu wa tacaala. inta yar oo la arkayay dadka u jeedaan keliya, intaasay ilaahay xusaan munaafiqiinta. idan aad bay u fiican tahay tilmaanta munaafiqiinta ay leeyihiin inaanan ku sifoobin, oon ka tagno oo aan ku sifoowno tilmaanta dadka saalixiinta ay leeyihiin, oo salaada xifdiya, oo salaada ilaaliya, oo rabbi ammaanay subxaanahu wa tacaala. dadka ilaahay kitaabkiisa uu ku ammaanay inaan ku sifowno sifadooda ayaa aad iyo aad u qiimo badan. yay yihiin dadka ilaahay ammaanay? waa dadku ilaahay kitaabkiisa ku ammaanay ee uu yidhi ilaahay kitaabkiisa ku aad iyo aad u qiimo badan. yay yihiin dadka ilaah iyo aad u qiimo sharna u adkaysan karin, khayrkana manciya. ilaahay sidaa ayuu yidhi subxaanahu wa tacaala, insaankii haluucnimaa lagu abuuray oo idaa massahu sharu jazuuc, haddii dhib iyo dhibaato taabatana waa argagaxa buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. waidaa massahu alkhayru manuuc, haddii khayr uu taabtana waa manciyaa, waa celiyaa, oo ma jecla dadka walaalihiis ee muslimiinta inay kala qayb qaataan. sidaasaa lagu yaqaanaa insaanka aan wanaagga iyo qiimaha lahayn. yaa ka faktay ila almusalliin buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala, dadka dukada maahane. musalliin yaa la yidhaahdaa, dhammaanteen maanta salaada waa dukanaa, laakiin tilmaamo dhowr ah ayuu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala. tilmaamooyinkaas dhowrkaa qofkii laga helo ayaa musalli xaqiiqo ah.